daawadayaal sida ku aragtaan waxaan ku sugannahay galbeedka magaalada London waxaad ku aragtaan dhalinyaro aad u da'yar oo dhanka ciyaaraha tenniska oo ay la socdaan waalidiinta iyo macallimiinta waqti hore ayaa laga aasaasay isla caasimadda waddanka Ingiriiska magaalada London macallimiin iyo waalidiin ku nool oo iskaashaday marka dhalinyarada da'doodu waxay ka bilaabataa 13 ilaa iyo 16 waxayna u ciyaareen runtii markaan aragnay maanta markaan ku soo boqonay garoonkan ciyaaro waxay muujiyeen aad u qurux badan iminka waxaan u yeerayaa mid ka mid ah macallimiinta si aan u weydiiyo laba su'aal oo xilliga ay ku bilaabeen ciyaarahan tenniska maasanteen telefishinka Universal magacaygu waxa la yiraahdaa Xasan Maxamuud Xasan waxaan tababarnaa carruurtan arkaysaan oo barta ciyaarta tenniska waxaan bilownay tababarka muddo laga joogay ilaa 10 sano 12 sano meelahaas marka qaarkood waxaan ku bilownaa ayagoo jira 3 jir 4 jir meelahaas haddana waxay marayaan da'dooda adiga ilaa 13 ilaa inta u dhaxaysa 18 intaas marayaan inta badan Soomaaliya waxa lagu yaqaanaa kubadda kolayga iyo kubadda cagta laakiin waa markii ugu horeysay tennis Soomaali ka qayb galaysa la soo daayay marka ra'yigan ku yimid ugu horeyntii ra'yigan wallahi wuxuu ka yimid kulli aniga ciyaarta tenniska aad aan u jeclaa Soomaaliya markaan joognayna muxuu ahaa sheegan waa qabnay dad tennis ugu fiican ee kamid ahaayeen Allah u naxariisto Axmed Xareed iyo Duniya Baraxow iyo Kaamila dad saas oo kale inta iyo macallimiin kale oo ayna hore u soo ciyaari jireen marka Yurub nimidna muxuu ahaa sheegay waxaan aad u daawan jiray ciyaarta tenniska taas ay ugu dhalisay marka hadii muxuu dadka ay ciyaari karaan anaga carruurtan inay ka soo bixi karaan ciyaari karaan taas aan ugu dhalisay waxaan aad ula dhacay markii aan daawaday ciyaartii ay isaga hor yimaadeen dhalinyarada oo ay ku sameynayeen testing iyo training ku sameynayeen ma arki doonaa mustaqbalka iyo garoomada Wimbledon ka ciyaari doona insha Allah wallahi waa arki doontiin sababtoo ah ilaa hadda waxaan haynaa carruur ciyaarta muxuu tenniska ay kamid yihiin laba hadda naga maqan oo waddanka ugu jira 300 ugu koreysa oo rajo laga qabo inay 17 jir iyo 14 jir haddii ay muddo kale ku sii jiraan si wadaan waxa dhici karta inay qaadaan muxuu sheegay ama competitionada waaweyn ay ka qayb galaan taasaan rajaynaynaa ugu dambeyntii guddiga Olimbikada qaranka Soomaaliyeed iyo Somali Tennis Development Initiative iskaashigan ay sameeyeen sidee ku timid wallahi iskaashiga hadda mid hadda noo horeeyo ma aha adii muddo hadda laga joogo 3 sano ka hor sidaan oo kale waxaan u qabanay tournament kale oo aan ku qabanay Cumberland oo ayadana muxuu sheegay ciyaalkan arkaysa hadda waxay ayaan markaas waa 3 sano ka yaraan hadda isu barbar dhigta musawaradii hore kuwan waa arki doontaa difference u dhaxay marka waa kulay waxa loo baahan yahay in tenniska Soomaaliya boorka laga jafo oo aan soo lunrayno waxaan qabnaa ciyaal ka bixi kara aan isleeyahay inay meel ka gaari doonaan tenniska هذا يا ذو ما حسنت هاي داود الكاسي وحوها مع الحسن أو كل مي قلبات كمجال لندن حل التوبر وصعدة لأن يرى ذا ير مستقبل كتنس كودن كسومالي سأكو ركتان جرون كان كوي الله إصلاح فضن قلبات كلندن وحكو ترين كوسمينا يد أضو فربضن مركز سومالي ذوي مادان حل حدها يي مادان شيء أي ترين كوسمين جرون كان كوي الله إصلاح فض ويمبلي وقلبات كمجال لندن. ورنتي أنا كهذا ما ملاش ما Olimbikada Soomaaliyeed in maanta runtii aan noqoto bilowgii dhalinyaro Soomaaliyeed oo insha Allah taala matali doona qaranka Soomaaliyeed xagga tenniska in waalidiinta magaaladan UK oo runtii ayagu is abaabulay oo runtii ah Somali maxay ahayto tennis development initiative oo macnaheedu ayaga runtii ay isxilqaameen in horumariyaan tenniska Soomaaliyeed taana ay keentay in one day insha Allah taala ay dhalinyartan dabadeed taagan xagga dambe inay insha Allah ay qarankooda ama calankooda Soomaaliyeed inay matalaan runtii waxaan u maleynayaa Soomaaliyahan anaga waxaan naqaanaa isboortiyo yaryar khaasatan dhinaca footballka iyo basketballka laakiin insha Allah taala maadaama aan rabno hadda ciyaaraha insha Allah soo socda 2015ka ciyaarahan Islamic Gameska iyo insha Allah taala ciyaarahan All African Games in aanu kaga qayb galno isboortiyo kala duwan hadday noqoto karate hadday noqoto judo hadday noqoto tennis bingaha dabaasha cricketka rugby Allah ka dhigay boxingka marka kulli waxaan u maleynayaa waa bilow maanta bilowmay waxaan ka faa'iideysanay fursadan TV-ga caalamiga Universal in wixii maanta ka dambeeyay ay waalidiinta dhalay caruuraha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan adduunka in sidii loo horumarin lahaa ama ay noo soo dhigi karaan wax fariimaha TV-ga Universal TV iyo
dhalinyartii isla wadankii oo matali karaana in runtii ayaga laftooda ay ku dadaalaan marka mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahad celinayaa waalidiinta waxaan oranayaa ha lagu dadaalo dadaalka dhalinyarta insha Allah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.